agaasimaha maxadka cilmi baadhista iyo daraasaadka siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa markii ugu horeysay waxa uu beeniyay warar maalmihii u dambeeyay isla dhaxmaray oo sheegaya in qoraal kooban oo uu baahiyay uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay la gudboon tahay inay qaado tallaabooyin iskugu jira mid cudud military iyo mid siyaasadeed ah oo ka dhan ah Somaliland si dib loogu soo celiyo midnimadii Soomaaliya. agaasimuhu waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan isla markaana ay baahiyeen dad uu sheegay in aanu ilaa hadda garanayn ujeedada rasmiga ee ay ka lahaayeen waxaana uu sheegay in aanay marnaba ka suurtoobin in uu baahiyo qoraallo la mid ah kuwa la soo daabacay. agaasimaha maxadka cilmi baadhista iyo daraasaadka siyaasadda ee Heritage oo codka bariga Afrika uu khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan dalka Canada ayaa waraysigan dheer oo na dhaxmaray aniga iyo agaasimaha ayaa waxa uu dhignaa sida tan. agaasimo ugu horeyn ku soo dhawow codka bariga Afrika. aad baan mahadsantahay Cabdifataxo. maalmihii u dambeeyay waxa baraha bulshada iyo warbaahinta aad loogu arkayay qoraal kooban oo aad ku sheegayso agaasime in Somaliland la isku geeyo cudud military iyo mid siyaasadeed ba sidii dib loogu mideyn lahaa Soomaaliya. arrintaasi ma jirtaa? Cabdifataxo waad mahadsantahay waan salaamayaa daawadayaasha. ma jirto qolooyinka macnaha baraha bulshada wararka been abuurka soo dhiga bawar noocaasa soo diyaariyay oo masawirkayga iyo loogada macadka Heritage iyo war sheegay inaan ku talinayo Somaliland dhibaato in loo geysto bay isku soo dhajiyeen markaas WhatsApp-ka iyo Facebook iyo Twitter-ka aad loo soo diray wax kale ma ahayn deenin la yaqaanaan ahayo macadkan iyo shirarka Djibouti ku qabanay iyo waxaas dhan marka waa la yaabay marka waxay noqotay inaan video hadda ka soo saaro oo aan shalay sii daayay ama maanta aan dhaho saaka aan sii daayay oo aan ku sheegayo warkaas inuu war beer amuur ahaa laakiin markii been la falkinayo meel ba wax laga soo dhigtay waxay ka soo dabceen inay ka soo dheegaan maqaal aan ku qoray BBC-da oo ciwaankiisu ahaa xaajada Soomaaliya iyo Somaliland xeer beegti bay u baahan tahay. ciwaankaas aan runtii hadda qofkii maqaalka aan akhrin oo ka dhadhansan karaa inaan wada hadal iyo walaalnimo aan ku talinayo marka dad baad wacaynay macadka Heritage anigana magac dilaan laakiin ma fududa hadda beento raad ma lahan lugana ma lahan waan ka daba tagnay. marka agaasime Cabdirashiid maqaalka aad qortay maxay dulucdiisu ahayd sama ku jirtay oraahdan la soo jiray wax u maldahan oo u eeg ama aad ku sheegayso arrimo noocaas ah. walaal maqaalka sida ciwaankan ku sheegay wuxuu ahaa xaajada Soomaaliya iyo Somaliland xeer beegti bay rabtaa. waxaan iri nuxurka guud ee maqaalku wuxuu ahaa Somaliland iyo Soomaaliya laba guddi oo runtii guddiyaal culus ah oo loo qaateena oo xal wal caqdi ah qolo kasta soo saarato waqtina hal la siiyo 3 sano intay ku noqotay xaajadan 30 sano qaadatay inay ku soo afjaraan. walibana waxaa yiri culimada iyo ganacsatada iyo dhaqanka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka iyo wixii aan looga maarmin oo dhan guddiyaas ku jiraan ilaa 15 qof xataa aniga maskaxdayda ku jirtay in ka soo meesha aan ku qorin hawshaas ha galaan waqtina hal la siiyo. waxaan kaloo sheegay marka qoladan dacday in anaga namaagto ay dabcan inay halkaas ka soo leexiyaan waxaan yiri Soomaaliya joogta oo koonfurta joogta waxa ku soo dhici kara in Somaliland la chuchubo oo khasab iyo cunaqabateyn iyo dhibaato lagu sameeyo taas baan hadda waxa ay madaxweyne Muuse Biixi oo dawladdan hadda shirka ku eedeeyay saasaan qoraalka ugu qoray. qaar kale waxa ku soo dhici karta in Somaliland magdhow la siiyo oo la raali geliyo oo laga cuddaaro oo aad looga garaabo dhibka ay tirsanayaan. qaar kale waxa ku soo dhici karta inay ajaanib soo kaxaystaan oo sida Abiy Ahmed iyo Erdogan iyo Switzerland baan qoray saasaan ku qoray maqaalka ay soo kaxaystaan oo Somaliland u adeegsadaan waxa soo dhan Erdogan in la soo kaxaysto iyo Abiy Ahmed iyo in la muqooniyo aniga ilma fiicna boqolkiiba boqol waxa ila fiican in xeer beegti iyo xal wal caqdi ay galaan hawshan waqti la siiyo. marka qodobadaas aan taxayo Soomaalida ku soo dhici karaan ee qaarkoodna iyamaha la maqlaayay markii la sheegay qaarkood aan radiyay idaacadaha aan ka radiyay oo aan ka dhaleeceeyay markii qaarkood ay ku hadleen in Somaliland dhibaato loo geysto oo bay soo qaateen waxay dhaheen Cabdirashiid baa wuxuu yiri Somaliland dhibaato loo geysto marka anigu waxaan iri loo guddi hal saaro oo hawsha xeer beegti loo diro halkaas marka dabcan inay iga soo qalluuciyaan oo dhahan saas Somaliland dhibaato loo geysto leeyahay. marka agaasime Cabdirashiidow
haddii aanay arrintaasi jirin oo aad been abuur ku tilmaamtay yaad u malaynaysaa in arrintan sameeyeen wallahi horta Soomaalidii dadkii intay barihii computer iyo internet connection la wada helay baa runtii waxa iska adkaatay macnaha dad badan laba ku jiraan meesha aan maaragtay kala duwan marka anigu qofna ku tuhmay in kasoo aan aqaano dadkii horeeyay soo dhajiyay oo qofkii horeeyay masuurkaas khaldan soo dhajiyay loo jeedo oo la og yahay asna ayaguna ay soo yihiin haddana hadda waa iska cafiiba dhibaato ma haysto laakiin ayaga raba inay beenta iyo buhtaanka iyo dadka in macnaha la nabto aad ay dambi weyn u tahay marka aniga hadda waqdadna ma qabo waxaana ima geysan karaan wixii khalad oo galana dawaawan galay waxaana gelin ima qaban karaan laakiin dad baa isku soo bilaabay kadibna dad kale oo siyaabo kala duwan uga faa'iideysanayay baa si bunbuuniyay marka waa yaan daro marka Cabdirashiid dadka aad sheegtay aad tiri iyaga ugu soo hordhajiyay ma kala hadashay oo ma sheegtay in arrintan been abuur tahay qof kasta masuurka soo dhajiyay khaldan intaan ka gaargaari karay waxaan u diray wixii anigu aan soo saaray oo aan soo qoray oo aan leeyahay xaajada saas loo galo afkaarahaas kalena dad baa istusi kara marka laakiin dad qaarkood xataa magacooda kuma qorneen just magacyo sax uma qorneen xarfaha ku qorqoran meesha marka caruur iyo dadaan macnaha adigu aan isku nooc ahayn maanta dhan laba doodi karo laakiin qofkii macquul aan arkay oo soo dhigay oo ama isoo weydiiyey oo u jawaabay intaan ka gaaray marka maadaama aan ay aad u fiday beentu videogaas 2 daqiiqo baan soo diray saaka aroortii oo aan leeyahay saas loo fahmo dadku runtii way dadkii yaqaaneen oo maba ay rumaysan karin inaan leeyahay dagaal hal qaado dagaal iyo dib iyo dad dhibaato loo geeyo hawa yaraatay ma aaminsani Soomaaliland anigu markaan yaraan waa ku noolaan jiray haddana waan tagtagaa inay nabad hesho oo horumarto oo baraartaan aaminsanahay oo hore u socoto ma in la dhibaateeyo ma aaminsani Cabdirashiid markaa inta badan maxadkaaga dadka reer Soomaaliland u dhashay waxay ku dhaliilaan in uu dhinac u janjeero oo ah dhinaca arrimaha Soomaaliya adigu ma aaminsantahay arrintaasi ama in arrintan salka ku hayso horta macadka xaruntiisu waa Muqdisho aad Soomaaliland wax uga ma qornaba oo runtii Soomaalida kale hawlahoodan u badanay sababta xafiisna Soomaaliland uga furra waxaan mabda noo ah wax la yiraahdo ha uga darin marka maadaama aan xafiisna ku lahayn qadiyadu kullihiin Soomaaliland daraasooyin kama sameeyno oo runtii waa iska wali ma aan soo bilaabay shaqadaas markaan bilownay 7 sano jirna anagu hadda markaan bilownay markaan daraaso soo saarnaba qola la radii jirtay oo xamar baa laga wataa Puntland baa laga wataa Kismaayo laga wataa Soomaaliland bay la jiraan Soomaaliland lama jiraan bari hore waa la sakaayay macnaha dadku uma ay baran Soomaalidu in daraasooyin cilmi la soo bandhigo oo afkaar kala duwan la soo bandhigo laakiin hadda intii dambe Soomaalidu waan aqbaleen shirarka aan Djibouti ku qabanno oo maragtay shanta Soomaaliyeed buu u yarnaa marka hadda waxaan isleeyahay heritage inay dad cilmi baaris ka shaqeeya oo aan dan gaar ah aan wadan inaan hay'adda dadka badankiisu og yihiin dadka Soomaaliyeed oo dhima anu runtii waxaan jecelahay inay hore u socdaan oo iswalaalsadaan oo la istugsado haddaan hal dal ahayn in la istugsado taas keentay madaxweynaha actorna shirka Djibouti Cabdiqawi inaan u yeernay marka agaasime maxadkaagu sida aad sheegtayba sanadihii u dambeeyay wuxuu waday barnaamij bulshada la isku keenayo oo marar badan aad ku casuunteen aqoon-yahano iyo siyaasiyiin kala socda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo lagaga dooday arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo khilaafaadka dhex yaala ujeedada adigu barnaamijka ka leedihiin ka maxadahan muxuu yahay waad maasantahay madashaas waxaan u bixinay madasha aragti wadaagga Soomaalida shantii Soomaaliyeed gumaysigu qiibay baan isugu yeernaa iyo qurba joogta in sanadkii mar ay helaan qiiqooda isku baxo la iswareysto la kala faa'iideysto waxyaabaha waaweyn oo Soomaali ahaan oo geeska Afrika degan khuseeya in waxa la iska yiraahdo marka si guud baan dadka Soomaaliyeed inay iska warqabaan taas aan ugu talagalay qadiyada Soomaaliya iyo Soomaaliland waa qadiyad weyn oo Soomaaliland hadda runtii waxyaabo badan baa waxan niban inay hadda gooni isku taagi ay rabeen adduunku soo ictiraafin oo dhaqaalihii iyo waxa dhisidii iyo hawlo badan baa ka xaniban midnimadii inay si jirna guud ahaan Soomaalida waxba ka xaniban marka markasta qadiyad weyn oo Soomaalida guud ahaan ka dhex jirta way arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland marka waa isugu yeernaa sanadkii dhaweydna dadkii Soomaaliland ka socday oo khubaro iyo siyaasiyiin balaha baan miiska kore fariisanay Soomaalidii wasiiradii Soomaaliya miiska kale oo ka soo horjeedo ka hooseeyaan fariisanay waxaan hal is wareyso hal is dhageysto marka doodahaas waa iska furaa
laakiin macnaha qadiyadda istaagan baa keenaysa in markii la isku yimaadaan dhana watanna maxaan ka dhahnaa waxbarashadan ka hadalay caafimaadkan ka hadalay wax soo saarkan ka hadalay shaqo la'aantan ka hadalay doorashooyinkan ka hadalay sanadihii ka horreeyayna waxaan ka hadalay geeska Afrika iyo bariga dhexe isugu furfuran yihiin iyo Soomaalidu say maartay wixii dhibaato uga moosi karto marka anagu intaan heritage ay runtii waxaan jecelahay Soomaalidu guud ahaan in hore ay u socdaan ahlu xalli wal caqdiguna ay talada wax macnaha ay aad wax ugu yeeshaan cunfi iyo colaad iyo dhibaato iyo wareerna kama shaqeyno mana aaminsanin waxaan aaminsanahay aqoon in lagu sareeyo iyo cilmi wixii taladii la go'aankii la qaadanayo iyo in la wada hadlo oo maaragtay dadku ay wada hadlaan guud ahaan shaqada dad qabato waxa weeye in aan aqoon soo saarno oo miiska soo saarno inaan madal u abuurno lagu doodo iyo inaan maslaxada caamka ah oo qofka Soomaaliga ah oo sidoo kale aan TV-ga cabtaan soo heli karin wuxuu dhigi lahaa inaan u dhaxno marka sidaas aan ka shaqeynaa marka qaarkoodna dadka siyaasadda ama gacanta ku haya ama masaalixda guunida waxay jecleen inaan sheegno waa dhici kartaa laakiin waxaan aaminsanahay suuq weeye cadahan iyo macnaha public space qof kasta wuxuu ku hayay inuu keeno anagu waxaan hayno waa keenaynaa fikrada naga fiican in jiraan oo ognahay in la keenana waa soo dhaweynaynaa marka anaga saas aan ku shaqeynaa marka ma isleedihiin barnaamijkaasi doodaha ah ee arrimaha Soomaalida iyo geeskaba inaad sii wadaan ma rajaynaysaan sanad kasta waxaan jecelahay inaan qabano waxa aad iyo aad nolol fududeeyay madaxweynaha Djibouti iyo jamhuuriyadda Djibouti oo runtii hoteelada ugu muhiimsan dalkaasna sidii 200 qof inaan noo martigeliya annaguna heritage ahaan Soomaaliya 200 ku dhawaadaan tigidhada adduunka uga soo kala goynaayo keenaa oo tigidhkoodii diyaarna lacagtaas tigidhka aan ku bixinana ganacsatada Soomaaliyeed baan siiso mahadeeda leh marka mashruucaas xitaa annagu baa magaciisa qaadana maahane runtii mashruuc shuraaka lagu yahay oo dadka ka soo qayb gala markay yimaadaan ayaga bilah Djiboutina gogashii dhigtaa ganacsataduna dhaqaale ay bixisaa annaguna dadkan wacnaa dhahna aan isku nimaadno marka waa loo leeyahay abantiisa marka agaasimo raalahow marka magaalada Djibouti oo qura ku qabanaysaan miyaad weydeen dhul kale oo Soomaaliyeed oo aad barnaamijkan sidoo kale aad ku qabataan wallahi aad iyo aad waxaan jecelahay inaan dadka beelaha Soomaalidu degantooda ku qabano Hargeysa aad u jecelahay inaan ku qabano hadda ka horna wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha andaho Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo wasiiro kale oo kala duwan oo Saad Cali Shire iyo wasiirkaas iyo wasiirka arrimaha dibadda Xada Fartoon iyo Faysal Cali Waraabo yaro weyn oo saragnay oo ka tirsan Soomaaliland waa u sheegay inaan xabashaan la Hargeysa ku qabano hadii madaxweyne Mustafa xukuumadda Soomaaliland inuu cusubeysan aadan diyaar u nahay inaan nimaadno oo aan ku qabano tigjiga xataa madaxweyne Cashir waa nagu cusubay hal keeno yiri waa idin ku cusubeyna marka waa jecelahay laakiin dadku Djibouti markaas macnaha cimiladooda wanaagsan tahay iyo dad badan oo dhici karta Muqdisho anaga xataa xarun oo ah inay ka yara maartay ku yara xogaa amnigeeda ay ka yara shaqeeyaan iyo siyaasadaha Soomaaliland iyo Soomaaliya si u kala fog waxaa isna Djibouti waa meel neutral ground ah meel dhexdhexaad oo dadku isugu imaan karaan runtiina 3 sano aan tagayna si gobonimada noo soo martigeliyeen noo soo dhaweeyeen dadkuna ay runtii uga helaan kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee Heritage oo isagoo ku sugan dalka Canada markaas uu codka bariga Afrika fursad u helay in uu khadka telefoonka ku wareysto wad mahadsantahay agaasimo mar labaad iyo mar saddexaadba adiga ma soo walaalkay thank you very much si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka